kulan waxaan u wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media. wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona Mareykanka oo sheegay in Itoobiya iyo TPLF ay cunaqabateenka uga badbaadi karaan heshiis. ganacsato Soomaali ah oo Turkiga lagu xiray lagana soo musaafirinayo. iyo wararkii ugu dambeeyay ee qarax ka dhacay marka iyo khasaaraha u geystay. daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan. dowladda Mareykanka ayaa ku boorinaysa dowladda Itoobiya jamhadda TPLF iyo kooxaha kale ee ka dagaalama inay soo afjaraan colaadda ka taagan gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. ayna ogolaadaan in gargaarka bini'aadanimo uu gaaro malaayiin dad ah oo u baahan gargaarkaasi. haddii khilaaf ku joogsan waayo ayay dowladda Mareykanka ku sheegtay in mas'uuliyiinta muhiimka u ah ee dowladda Itoobiya iyo TPLF ay la kulmi karaan cunaqabateen xagga socdaalka iyo maaliyadda Mareykanka. sihayaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga Afrika Brent Hunt ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay doonayso in la soo afjaro colaadda 10 bilood ka socday Tigray. haddii dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF ay qaadanin tilaabooyin micno leh si ay u galaan wadahadallo xabad joojin ah ayayna ogolaadaan howlaha gargaarka bini'aadanimo oo aan carqalad lahayn, Mareykanku wuxuu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto abaabulidda kaalmada Itoobiya si ay uga soo kabato dib u soo noolaanshaha dhaqaalaheedii. tilaabooyinkaas micnaha leh waxaa ka mid ah in la aqbalo dadaalada dhexdhexaadinta uu hogaaminayo Midowga Afrika, ogolaanshaha wadaxaajoodkana iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin, iyo in la aqbalo wadahadallada bilowga ah, ayuu yiri siyahayaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga Afrika Brent Hunt. ayaa wuxuu sheegay in dhammaan dadaaladii kale ee lagu cadaadin lahaa dhinacyada dagaalka ka dhaxeeyo si nabad ah loogu dhammayn lahaa dagaalada ay fashilmeen, taasina ay keeni karto hanjabaad cunaqabateen ee uu saxeexay madaxweyne Joe Biden. ciidamada Itoobiya ayaa gudaha u galay gobolka Tigray bishii November ee la soo dhaafay kadib bilooyin ay socdeen xiisad u dhaxeysa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xisbiga haya talada ee TPLF. waxaa faahfaahin dheeraad ah aan ka helaynaa ganacsato Soomaaliyeed oo laga xiray goobo ganacsi oo dalka Turkiga ay ku lahaayeen, kuwaasi oo Khamiistii la soo dhaafay ee xabsiga dhigeen ciidamada booliska ee dalka Turkiga. warbaahinta qaar ayaa waxay sheegaysaa in tirada dadka Soomaaliyeed ee lagu xiray dalka Turkiga ay gaarayaan 9 qof oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasi oo qaarkood haysta baasaboorro dalal kale sida Ingiriiska iyo Canada, halka qaarna ay iyagu ahaayeen mulkiilayaasha ganacsiyada la xiray. sida aan ku helina sababo la xiriira dadkaasi isla markaana loo mamnuucay ganacsiyadooda ayaa ah inay dalka ku soo galeen fiisooyin isugu jira dalxiis iyo ardaynimo oo deganaansho lagu siiyey. sharciga dalka Turkiga ma ogolo in dad u yimid dalxiis ama waxbarasho ay dalka ka furtaan goobo ganacsi, sidoo kalena sharcigu uma ogolaanayo dadkaasi inay ka shaqeeyaan gudaha Turkiga. safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa shalay la sheegay inay ku guuleystay in xabsiga laga soo daayo 9 qof ee Soomaalida kuwaasi oo intii ay xabsiga ku jireen laga saxeexay in muddo 30 cisho ay dalka uga baxaan. marar badan ayaa la sheegay in booliska Turkiga uu u digay ganacsatadaasi Soomaaliyeed hadda laga xiray goobahooda, waxayna dowladda hore uga dalbatay inay sharciga bedeshaan oo ay qaataan iqaamada shaqada. hase yeeshee jaraa'idada ka soo baxa dalkaasi ayaa waxay sheegeen shuruudaha lagu helo kaararka shaqada iyo ganacsiga ee dalka Turkiga ay adag tahay, taasi oo ku kaliftay ganacsatadani in deginaha uga imaanayo dowladda ay dhagaha ka furaystaan. sidoo kale xubno ka tirsan safaaradda ayaa waxay sheegeen in dowladda kula doodeen in dadkaasi aan la tarxiilin oo dalka aan laga saarin maadaama hanti badan ay ka taalo gudaha dalka. sidoo kale safaaradda ayaa qabatay qareeno si dadkani Soomaaliyeed loogu doodo inay dowladda siiso waxa ka dhiman iyo shuruudaha looga baahan yahay maadaama qaarkood hanti badan ay dalka u taalo. haatana wararkii ugu dambeeyay ee qarax ka dhacay marka iyo khasaaraha uu geystay. wararka naga soo gaarayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay bartamaha magaalada Marka ee xarunta gobolkaas. qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay garashka Cawaale oo ku yaala agagaarka saldhigga booliska ee magaalada Marka.
ilo deegaanka ayaa inoo sheegay in qaraxa kadib ay rasaas fureen ciidamada ammaanka oo goobta gaaray, kuwaasi oo haatan bilaabay baaris la xiriirto dhacdadaasi. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in qaraxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse waxaa weli socda baaritaano ay wadaan hay-adaha ammaanka. sida ay inoo xaqiijiyeen ilwareedyo lagu kalsoon yahay waxaa qaraxani ku dhintay marxuum lagu magacaabi jiray Siciid Jilbow iyo sidoo kale ninkii diyaarinayay miinada qaraxday. xaaladda ayaa weli aad u kacsan, wuxuuna qaraxani uu saameeyey dhaqdhaqaaqa xaafadda Wadajir oo ah meesha ay waxa ka dhaceen. ammaanka Marka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahaa mid degan, waxaana ka howlgala ciidamada militariga iyo kuwa sugidda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. daawadayaal, taas ayaan kusoo afmeerayaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka aan idinkaga haynay. wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinayay anigoo ah Cabdinajiib Cabdulaahi Najiib Akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.